بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتو عن وناكسنا خيارتا قيمها يقدرنتا نجا مدن نجا دعوانية تلفزيون كقرن كالصومالية دعوذياش عن جعلنا هيو كسر دوادا برنامج كان مقال كبرشدة وتضوات كان اللي كجي إيمانية مقالة أمستردام ودن كهولن. برنامج كان مقال كبرشدة تضوات كان وحنا قوة رئيسن دونا شمسو الشيخ حسن سعيد أو قريقانة الصومالية إسلام كاسنا حلقي دولة محمد سياد برك قنصل كإهاد سفارة الصومالية midowga Yurub imankana madax ka ah ururka Somkan oo u dooda xuquuqda carruurta sidoo kale waxa ay ka mid ahayd aasaasiyaashii ururka dalada Soomaalida ay ku midaysiin halkan ka jira ee la yiraahdo EFSAN. Shamso waxaan wax badan ka weydiin doonaa oo barnaamijkeena muuqaalka bulshada aan ku wareysan doonaa waxyaabo badan oo ku saabsan mujtamaca Holland degan ee Soomaalida kuwaas oo aan waxyaabo badan markaasi aan kala sheekaysan doono. Shamso ku soo dhaw barnaamijka ودوهي تاجروا ومانسان تاعي مركو ugu horeysa waxaan halkan ka salaamayaa bulshada Soomaaliyeed meel walba ay joogaan intii garanaysa dadka marka ay bulshada Soomaaliyeed dad fara badan laakiin intii garanaysa horta inta kale waxaan ku salaamayaa salaamta islaamka assalaamu calaykum adigana waan kaaga mahadcelinayaa barnaamijkeenan aad runtii ku dadaalaysan inaad dhinac walba ka tusisaan adduunka Soomaaliya waa kala qaxday laakiin qofka meesha joogo waa mahadsantahay وما سنتين سيدو كله waxaan jeclahay hadii aan barnaamijkeena guud galno su'aasha ugu horeysa aan ku weydiinayo maadaama Soomaali badan halkan ay degan tahay ay ku nooshahay wadanka Holland oo ka mid yahay wadamada sida weyn u caawiya dadka Soomaaliyeed markii burburka Soomaaliya u dhacay oo dad fara badan halkan soo galay bal marka hore bal bulshada halkan ku dhaqan nooca ay yihiin oo Soomaalida ah iyo sida halkan ugu nool yihiin bal noo faahfaahin marka ugu horeysa horta bulshada Soomaaliyeed wadankan Holland laga soo bilaabo markii ay imaatinka dagaaladii burburkii wadanka markuu dhacay 1990kii hadaan dib ugu laabto ka hor waxaan bis oranayaa dad Soomaali ka soo qaxay oo halkan joogay waa ay jireen laakiin mararka qaar waxay ku dhiibnaan jireen inay Ethiopian iyo goboladaas ka soo qaxeen laakiin waxay imaadeen inta badan burburkii markuu 1990kii bulshada marka hadaan cabirno waa bulsho waxaa laga joogaa hadda dagaaladii 4 sano ku sii dhowdahay inta Soomaalida wadankan soo degtay marka bulshadu runtii waxa anigu inta badan aan oran karaa waa bulsho horta hadda waqtiga la maraayo aad bulsho walaayar waxa jiray dadkii iyagoo waa maartay waqtiyadii dhexe ku jira soo qaxay oo kale inay yimaadeen horaankii 1990kii ilaa iyo 1995tii ay dadkii imaanay ay ahaayeen dadkii hore oo maarta ama wadanka wax ku soo bartay ama mas'uul ka soo qabtay iyo ilmahooda oo ay la soo qaxeen markii ugu horeysay markaas la fiiriyo dadkaas waxay ahaayeen dad iyagoo roon oo waaweyn oo mas'uuliyad iyo nolol iyo wax soo arkay yimaadeen bulshadii marka kuwaas sidoodii kuma joogin laakiin hadda waqtiyadan dambe 10 sano dambe waxa yimaada dhalinyaro aad u fara badan oo dhalinyaro yar ah sida adigoo kale iyo intii kaasi yar marka dhalinyaradu waa nolol cusub marka bulshada Soomaalida hadda ayaan dhaweyd la sameeyay maaragtay baaris cilmiyeed la sameeyay waxa ay noqotay bulsho aad u yar macna da'dan ka hadlay yaraanta kama hadlay tirada ay ku joogaan laakiin dad dhalinyaro la fiirsho dhalinyaro ah markaan fiiriyo wadamada adduunka loo kala qaxayna dadka Soomaaliyeed halkan ku nool inkastoo dad badan oo waagi hore dadka soo galay ay u guureen Ingiriiska ama meelo kale ee Mareykan isku dardar dadka Soomaalida wadankan soo galay runtii waxaan is oranayaa dib isku celceliyo ilaa markuu ka xudhacay 100,000 malaha kore u dhaafay waxaan filayaa in sheekooyin badan ka sheekeysay dadka sidii u soo galeen marxaladii dadka ay wadanka ku soo galeen iyo sida hadda ay yihiin su'aasha ku weydiinay waxay tahay maadaama Holland wadanka Holland la dhaho dadka si weyn buu caawiyo Soomaali badan ah sharciye ka heshay Soomaali badan oo dib u jidin u sameeyay oo wadanka ka faa'iideysto marka dadka wadanka degan sidee ugu faa'iideysteen dhinaca waxbarashada carruurtooda kale iyo ayaga naftirkooda bal qaabka wadanka lagu faa'iideysto horta runtii dadka waxa weeye Soomaalida markay yimaadeen markii ugu horeysay iyo maanta duruufaha lagu soo dhaweynayo ama qaxootiga loo ixtiraamayo horta waa ay kala duwan tahay marka fiirisid 20 sano la qaxay Yurub dadku waxaad isleedahay intaas xataa Soomaalida kalimaayna qaxootiga dhanba ay wadamo badan dagaal ka dhaceen soo qaxayeen marka dadkii runtii hore oo la soo dhaweeyay oo iyagoo qaarkood la soo qaaday xataa Kenya iyo Ethiopia laga soo qaaday
iyo soo dhaweynta halkaan runtii aad ayay uga duwaneed waxaa loo hayay maaragtay soo dhaweyn fara badan xagga dhaqaalaha dadka lagu soo dhaweeyo xagga dadka sida ay kaamanka oo kale kuma daahi jirin marka iyo dadka waayadan dambe soo galo duruufihii waa kala duwan yahay dadku kaaman bay ku daahaan mararka qaarkood sharciyada waayadan dambe aad baa loo adkeeyey marka runtii laakiin saasay tahay dadku waa dadaalaan dadka soomaalida ah wadankan ku dhaqan runtii dad badan oo soomaaliya ayaa marxalado kala duwan ka jooga noloshooda qaar meeshaan iyagoo yar yimid ama iyagoo yar la keenay wax ku bartay fursada dadkii hore aad si fiican u helay oo ka faa'iideysiga dhinaca waxbarashada xagga waxbarashada iyo xagga soo dhaweyntan ka hadlaya laakiin dadkan hadda cusub oo yimid waayadii dambeeto weliba waxaa jirtay muddo waayadan dambe hadda sharciga waa la siiyaa dadka laakiin muddo waxaa jiri jirta xataa dadka aan shuruuc la siin jirin oo intii in muddo ah ay kaamanka ku jiri jireen marka duruufo aada u qallafsan ayaa mararka qaarkood ay ku sugnaan jireen laakiin dadka sharciga helaa oo wadanka sharci la siiyo inta badan horan markaa fiirsid waxaa laga dowladda dadku Nederlandka waxay duulaan qofku inuu noqdo qof isdabira marka Soomaalida haddaa fiirsid inta badan waa isdabiraan laakiin waxyaabo badan oo dib u dhac ku keeni karana waa ay jiraan oo ay kala yimaadeen ama wadankii ama qofkii aan wadanka wax kusoo baranin ama muddo kusii dhex noolaa iyadoo dagaalo ku jiray wadanka dhexdiisa lama rabay intuu qurbo soo maraayo meelo kala duwan rafaad oo dhan dhibaato badan runtii marka dadku aad ayay ma la dhihi karo kulligood waa wada dad dhibaataysan ama dad wada guul gaara way lama oran karo waa isku jiraan bulshada tan kale aan ku weydiinaya waxay tahay bulshada halkan ku dhaqan oo kale qaarkood waxay yidhaahdaan xoogaa waxaa nagu adag isdhexgalka dadka kale ee Nederlandka ee wadankan aan ugu nimid oo kale tusaale ahaan in isdhexgal oo kale bal arrinta isdhexgalka dadka Hollandeeska iyo dadka Soomaalida bal ka war horta arrintaas aniga ciyaal xamaran ah mahmahyada badan oo laga badiyaa laakiin waxay dhahi jireen Soomaalida meel haddaad tagtid isha laga laayay adigana isha la iska tiraa ama maayaashii aan maqli jiray arrintaas horta ma rumoobin markii la fiirsho Soomaalida qurbaha u soo qaxay sababta ah dad badan oo runtii inay isha iska tirtid qasab maaha laakiin haddana inaad bulshada dhex gashid Soomaalidu dad badan oo dhex galaa waa ay jiraan oo bulshada dhexgalkeeda xataa kala duwan laakiin inta badan hadda waxa aad loo kala qeyliyaa Soomaalidu iyagu ba isku kooban aan kala dhamaanayna wadankii dagaal ay kusoo kala tageen halkaan ayaga bulshooyinka kale intay u furmi lahaayeen inay dhex gali lahaayeen runtii waa isku daynay annaga markii hore aan Efson la aasaasay ilaa iyo hadda waa isku daynaa dadkii hore oo meeshaan mas'uulka ah inaan mar walba la sameeyo mashaariic dadka sida loo dhexgali karo ama aad wadanka uga faa'iideysan kartid waa fiican tahay dadku qof walbaba dadkiisu jecel yahay laakiin haddana meel haddaad timaadid waxa fiican inaad geesaha fiiriso dareenka joog waaye anaga reer xamarkan hana marka meel aadan u dhalan haddaa imaatid waxa fiican in mar walba aad dabacsanaan la imaatid fiirisid inkastoona dhihi karin taas qof walbay u suurtoobi kartaa marka dadka qaarkood haddaysan aqoon hore usoo lahayn luqadda cusub ay baranayaan waxyaabo ka hor imaan kara xagga dadka isla markiiba waa ay jirtaa kasoo qaad dadkii hore wax soo bartay xataa markii halkan cabaar joogeen wadanka waxay ugu guureen iyagoo leh luqadoodan meel kale lagagama hadlo marka wadamada ingiriiska ilaan dadku af ingiriisi wax kusoo barteen saasay ingiriis ugu guureen iyo maraykan ugu guureen laakiin aniga waxaan aaminsanahay shams ahaan qofka meesha hadduu cabaar joogo inaad horta aad la imaatid inaad la timaadid maaragtay wax la yidhahdo samir qofkii samraasad leh markuu qofka joogo meesha fahmo midda kale duruuftu hadda idinka dhalinyarada tihiin haddaa ilmo dhashaan iyo marka kale waa la kala duwan yahay ilmaha yararka waxaa jira inay u baahan yihiin xuquuq ah meesha ay ku dhasheen ama ay la keeno inay u baahan yihiin inay deganaansho helaan haddii marka reerkii iyo qoysaskii mar walba ku fakarayaan waa sii tegaynaa waa guuraynaa marka sababahaas horta u badan waxa ay Soomaalida isugu dhagan yihiin ayaga kaliya waxaa la sheegaa Soomaalida halkan ku dhaqan hadda kuwa dadka cusub oo kale inay dhibaatooyin badan ay kaga yimaadaan dhinaca immigrationka qolyaha ANDda la yiraahdo dhinaca sharci darrada iyo xoogaa dadka banaanka la iska dhigay dhibaatooyin badan ay jirto xataa qof ku dhex jiro bulshada oo inta badan ka shaqeeya arrimahaas oo kale ka war horta runtii arrintaas waa duruuf wadankan xagga siyaasadda wadanka intii 20 sano waliba 10 sano ugu dambeysay aad ay isu sii bedelaysay xagga qaxootigii oo wadamadan Yurub ku farabatay iyo dadkii wacyigood isbedelay xagga siyaasadda qaarkood dadku dhan maaha oo xisbiyada maaha laakiin xisbiyo badan oo dadkii ajaanibka ahaa ama u arkaya inay ayaga qatar ku yihiin ama u arkaya inay wadankii la qabsanaynin
waa dhibaato keeni karta inay adkeeyaan xagga xagga maamulka xataa qolada immigrationka iyo dadka Soomaalida hadda waxaa jirtay markii 2007 iyo 8 iyo dad badan oo Soomaaliya soo galay markii laga siiyay waxaa dhacdo marmarka qaarkood dadka Soomaalida kale magaalo wadamada kale Yurub joogay ama sharci ku waayay inay haddana halka yimaadaan marka maadaama inta badan waxaa lagu xaqlinayaa waxaa leeyahay dadkan waa dad waxa ay isku dhiibayaan waxba kama jiraan ama sheegan marka dhibaatooyinkaas keeni karta inay xagga immigrationka aad loo adkeeyo ama sharciyada xaggooda aad loogu adkeeyo sababta waxay leeyihiin hatta waxa loo ogolaaday waayada dambe inay dadka qoysaskooda keensan karaan ilmahooda dadaa waxay keeneen dad kale ku soo keen marka wax la saari karo xagga wasaaradaha maaha laakiin xagga anaga dhexdeena naftarkeena iska fiirino Soomaaliya waxyaabaha keeni kara mushkiladaha ka mid tahay iyo iyagoo mar walba madaxooda ka guuxaya in la yareeyo dadka qaxootiga Yurub oo dhan labadan maalmood dadaal socotay waxaa laga hadlayay ilmaha ayaa qoysaska ilmaha leh ama ilmaha halkan ku dhalaan ilmaha keenay in ilmuhu xuquuq caalamka ah oo caalamka dhan isla aaminsan yahay oo convention on child rights ayaa jira oo xuquuqda carruurta wadamadan ay wax ka saxiixeen ama wax ka sameeyeen ayaa marka loo doodayo ilmaha yarka waxba ma galabsanin waa in sharci la siiyaa ayagana wali waa ku dhagan yihiin marka waxay dhahaan kinderbakdoon ama carruurta in loo qoysaska ilmaha marka runtii waa duruufo dhib badan haddana dad badan oo Soomaaliya oo sidaas oo kale qof walba waa nasiibkiis markii qofku isdiibaya xataa waxyaabo badan ay fiiriyaan waxay keentay dad badan inay hadda muddo sharci loo diiday hal la celiyo meel lagu celiyo male dad badan inaad Amsterdam waa maqashaan dhibaatada ku haysato oo maaragtay dadka ururada oo Soomaalida halkan joogo maxay u qabtaan dadkaas oo kale ka caawin karaan haddii qofka sharci la'aan noqdo oo banaanka la soo dhigo oo dhibaato haysato Soomaaliga iyo dadka Soomaalida qaar badan oo is-abaabulo oo u taga ama booqda ama wax la qabta waa ay jiraan laakiin xagga sharciga inta badan in loo doodo xuquuqdoodaas iyo maaragtay in wadankii celinteedii iyo laguma celin karo iyo inta badan waxay ku xiran tahay waxyaabo badan oo dadka ururada halkan jooga aysan iyagu awood u leeyihiin wax ka qabtaan laakiin haddana inta badan waa lagu dadaalaa si almeena markay ugu yar tahay dadku ay u ogaadaan ama loo maqlo dhibaatada haysata waxaa horta ugu wacan aniga koley dadkii waagii wadanka dhisnaayo kala ka soo cad oo wadankeena uu jiray dadkii wax kusoo bartay aniga markaan safaaradda Soomaalida ka shaqeynayay waxaan qaabilsanaa xagga boorsooyinka dadka scholarshipska waliba oo masterska dad badan oo halkan u yimaadeen inay masterkooda ku sameeyaan jaamacadda iskala baxnay oo Soomaaliya ka wada baxnay wax dhibaato badan ay kala kulmi jireen ma jirin waxa ka garanaysaa marka in qofkii aqoonta lagu soo siiyay wadankiisii uu dhisnaa marka hadda dadka imaanaya dhibaatada haysato waxa weeye iyagoo burburkii aan ka qayb qaadan ama helinin maaragtay duruuf ay wax ku baran karaan ama ay nasiibkii dadkii hore lahaayeen aysan helinin dhalinyarada maanta marka iyo dad wadamo dhisan kasoo qaxaya oo wadamadii iskoolaad kasoo galay oo waxbarashadoodii u dhiganta halkan waa la kala aad bay u kala duwan yihiin waxaa kaloo inta badanna aniga aan isleeyahay ay dhibaatada keentay ay tahay in xataa qoysaskeena markay halka yimaadaan markii loo fiirsho qoysaska kale oo dadka qaxootiga ah waxaa dhici karta qoyska isqabo oo qaxootiga ah inay qaarkood hal ama laba ilmood ay leeyihiin qofka qoysaska Soomaalida markay ugu yar yihiin 5 ilaa 6 ilmo ayay leeyihiin marka waalidkii waqtigii uu siin lahaa ama wadanka uu la qabsan lahaa ama maaragtay anigu taas arintaas inkastoo dadka qaarkood ay dhihi karaan maaragtay dood la gelin karo laakiin haddana waxaan u nisbeynayaa inay tahay waxyaabaha hooyooyinka iyo aabayaasha wadanka ilmaha ku korinaya waxbarasho u rabo dhibaatooyinka kor yimaada ayay ka mid tahay waxaa jirta waxaad ka shaqeysaa dhanka carruurta haddii aan u imaado carruurta aad inta badan xuquuqda carruurta u doontaa bal dhibaatooyin fara badan oo dhinaca carruurta halkaas ka jira iyo waalidiinta oo kale bal maxaad noogu sheegi kartaa waxyaabahaas kale horta ilmaha markii dhibaatada carruurta runtii waa wax markuu ilmuhu yar yahay ilaa maalintuu dhasho ilaa iyo markii uu maaragtay halkan wadankan kolley qaangaarka ilmaha waxaa 18 sano lagu qaangaaraa wadankeena 15 sano ilmuhu horta waxaa dhibaato badan ilmuhu waxaa kamid ah lala soo qaxay oo wadamo badan oo qaxa soo maray markii halkan yimaadaan ilmihii kaam haddana galaan kaamamka inta badan qoysas fara badan dhaqamo kala duwan qaxootiyo fara badan ayay la kulmaayeen ilmihii waalidkii oo marka ugu horeysa laga yaabo inaan horey sharci laga siinin oo walwal haysto dhibaato markii guryaha la dejiyo inta badan waalidiintu intay ay dhihi lahayn bal halkaan aan fiirino iyo ilmaha waxaa iska yimaada dhibaatooyin badan oo Soomaalida aad runtii
ay keenaan ay kamid tahay la qabsan waaga dhaqamada kala duwan korinta ilmaha dhaqamada cunugaaga waa korsan kartaa waalidiintu waa dad wada mas-uula Soomaalida laakiin markay halkaan yimaadaan iyo waxyaabaha laga sugaayo luqadu waa qayb ay kamid tahay inaad fahamtid horta waxa laga rabo iyo cunuga korintiisa dhibaatada kalena waxay ka timaadaa inta badan wadankeena uma inaan baranin hay'ado dawladeed oo ilmaha kugu fiiriya ama xuquuqdooda kula ilaaliya halkaan waxaa jira wadamo hay'ado badan oo loogu talagalay inay caruurta ilaaliyaan waa jecelnahay inaan aniga waa ku mashquulsanahay ururkeena soonkan inaan Soomaaliya hay'adahaas oo kale la sameeyo si bal maaragtay ilmaha xuquuqdooda xataa xagga laga bilaabo muhiim waagi horena xamar baa anaga xafiiskeena ahaa oo waxaa la aasaasay 98 maaragtay muddo hore 89 la aasaasay intaan dagaalada dhicin markii halkaan la keeno dadkii waalidiinta dhibaatada haysta waxaa kamid ah hay'adihii oo ilmihii u arki kara marmarka qaarkood dayacan yihiin marmarka qaarkood marka ugu horeysa waxaa la geynayaa ilmuhu markuu dhashaba meel lagu controlo jirta oo sida anaga MCH ka aan dhihi jirno oo kale meelahaas oo kaleeto waxyaabo badan ay fiiriyaan marka ilmaha xuquuqdooda runtii ma ahayn waalidka kaliya dalaan laakiin isku hor imaadka ama isfaham waaga labada dhaqan lagu korinayo ayaa dhibaato badan keenay dadka qaarkood cabsi badan ay ku abuurtay waalidka sida ilmihii ku korsan lahayn waxay leeyihiin ilmihii waa laga qaadaya ama ilmaha laga qaadaya daa waxaa samaysa ama kana daa lahayd ilmaha waa laga qaadaya iyagoo inta badanna aysan sida ilmaha la iska qaadaa waqtiyo badan ay marto haddana way dhacdaa dhibaatooyinkaasayto marka taas ruuxeeda waxaan isku daynaa laba dhinac inaan u shaqeyno dhinacin dadkeeni aan wacyi gelin oo loo tabo la talin ma sameysaan hooyooyinka iyo caruurta haysto iyo aabayaasha caruurta haysto kale ku tagtaan xaafadaha ku tagtaan mar ma sameysaan maadaama sharciyada caruurta wax badan ka taqaanaan oo adigana xafiiskaaga uu ka shaqeeyo horta waxaan sameynaa inaan hay'ad ahaan aan ilmi tababarno dadka wadanka cabaar joogay oo luqadii fahmaya dad badan ah 15 gabdhood ayaa loo tababaray ayaan dhawad mashruucaan aan xirnay sanadkiisa ugu horeysay gabdhahaas hooyooyinkaas waxa loo sameyn doonaan ay sameeyaan inay dadkii u dhawaa ay iyagu wada hadalkaas haday wax arkaan in iyagii mid kalena dadkii magaalooyinka 3 magaalo hadda ka bilownay in la wacyi geliyo xagga tarbiyada caruurta aad ku korinayso dhaqamada kala duwan waa tababar gooniya oo qof anaga ku takhasusay ayaa sameeya tababarkaas isaguna Soomaaliya gabar Soomaaliya markii taas la sameeyo in laga hadlo maxaa horta anaga dhaqankeena ku fiicnaa maxaa halkaan naga qasan oo ilmaheeni loo faragelinaya waxyaabo badan in la isweydiiyo oo laga wada hadlo laga wada shaqeeyo isla markaana dhinaca kale hay'adahana waxaan u sameynaa waxay yiraahdaan meetings shirar baan u qabanaa hay'adaha aan soo casuunaa si aan iyagana ugu dhibaatooyinka dadka Soomaalida haysta si u fahmi lahaayeen marka labada dhinaca Soomaalideena oo inaan aqoontii wadankan aan fahmo la dhex dadka la baro iyo dhinaca hay'adaha wadankan qaabilsan iyaguna inaan sanadkiiba 2 jeer aan qabanaa shir kaga wada hadlayno hadba network ay yiraahdaan meetings si la isu arko oo wixii dhibaato hadda ilmaha mugta qoys waxaad arkaysaa qoys wax yar ilmo lagu faragelinayo marmarka qaarkood gaaraysa in sidaas looga qaado ilmaha marka inaan isku xirnaano Soomaali ahaan hadba qofka meesha ku cusubna la fahamsiin lahaa hadda dadka qaarkoodna dhibaataaba looga qaadayo ama dayacnaan baa jirta ama dad xanuunsan baa jira oo ilmaha sababahaas lagu kala qaado waa kala duwan yihiin marka kulay qolyaha qaabilsan wadankan oo kale caruurta dabagalka ku sameeyo kale dabcan waxaa filaya inay la xiriiraan xafiisyada kala duwan sida xafiiskiina oo kale community-ga ama dadka Soomaalida oo kale iyo dadka kale idinka xiriir ma leedin qolyahaas report idin soo gudbiyaan dhahaan oo kale qoysaba la talin u baahan yahay afka in laga caawiyo waxyaabo badan kale talooyinkaas idin soo gudbiyaan talooyinkaas horta iyagu marka hore kama dareemi karaan laakiin maadaama aan xiriir leenahay haday wax arkaan ama hay'ado kala duwan ay maraan waqti hay'ad waxaa jira dhowr hay'adood hadaan Youth Child Protection Institutions wadanka waa aad u fara badan yihiin marka qaar toos aan la leenahay sida kuwaas loo wada yimaado nala soo xiriir way jiraan iyo markay dhibaato dhacdo dadka Soomaalida ah oo iyaguna soo qayliya markaas iyo sidii loo kala dhexgeli lahaa ugu dambeyntii maxaa jeclaanahay Soomaalida aad ku baraarujiso halkaan degan ka aqoonaan maadaama qof aqoon-yahanada tahay wadanka aad ku dhex jirto wax badan aad qabato runtii marka ugu horeysa dadka Soomaalida ah talada aan siin lahaa waxay tahay maadaama meel dalaadan lahayn dareen ku joog qofka markuu yimaado inuu u baahan yahay in uu horta luqadda barto
maadaama aadaadan luqadii fahmaynina dhibaatada ugu horeysa horta luqaday ka bilaabataa marka in uu qofku barto macnaha luqada Netherlands sidoo ugu hadli lahaa waa muhiim sababta hadduu isagoo yarna inuu mustaqbalkiisa waxaa jira waxyaabo badan hadda dhalinyaro badan oo hadda soo galay oo aan isdhihi karno wadankii dagaalada maray iyo ma aysan ka faa'iideysan haddana aad arkaysid inay ka faa'iideysanayaan waxbarashooyinka sare tagayaan marka dadka qofka dadaalkiisa ku xiran tahay isla markaasna waxaan bulshaweynta Soomaalida kula talinayaa meel walba joogaan haddii wadankii laga soo tago oo qofku qurbo yimaado waa inuu ku xisaabtamo inuu qurbaha ku noolaanayo 100% inuu ugu noolaadaa fiican hadduu qofku kala qaybsan yahay uu leeyahay biraan noqonaya maxaa wadankii laga sheegay siyaasadii Soomaaliya ka socotay waxa qofku binaadam ma kala qaybsano waqtiga uu qofku xaggaas gelinayo ama telefishinada wadankeena waa fiican yahay in wadankii lala socdo laakiin haddana meesha ku nooshahay fadhi fudurka badan iyo dadku waa isjeceliin la kala faa'iideysto sababta hadii la sii yimaado hataa intii sheeko maanta dhan hebel wuxuu yiri iyo maanta dawladdu waxay tiri oo xaggaas lagu mashquuli lahaa in meeshaan horta bal la yiraahdo xagee joognaa aan meeshaan fahamno markaasna qofku meel wada gaari kara marka taasaan horta inta kaligeena ma laakiin hay'ado badan oo Soomaaliya ururo badan dad fara badan oo Soomaaliya taqaatiir baan leenahay wadanka runtii dad badan oo wax ka gaaray dhalinyarada xaggeeda hataa dhalinyaro ilaa jaamacada taqaatiir barta waxbarasho heer sare barta ayaa jira marka dadaalka dadka Soomaalida ma yara laakiin inay fahmaan inay meel kala degan yihiin yaa geesaha la isku fiiriyo taasaan kula dardaarmi lahaa oo runtii loona baahan yahay qof walba oo qurbo taga maaha qolan kaliya intaad joogtid inuu qofku 100% halkaan joogo berri haddaad dhoofaysid berri waa ilaahay hana gaarsiiyo berri joogtid inaad maanta ku talagashid inaad wadankan fahamtid odayaashaan jecelnahayo intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkayga muuqaalka bulshada oo idinkaga imaanaya magaalada Amsterdam ee wadanka Holland isla markaasna aad ka daawanayseen telefishinka qaranka Soomaaliyeed xaruntiisa wadanka Holland barnaamijka waxaanu ku wareysanaynay Shamso Sheekh Xasan Saciid oo ah aqoon-yahano Soomaaliyeed isla markaasna garyaqaanad ah waxaa barnaamijka dhanka kaamirada naga hagay Cabdiraxmaan iyo waliba Raaga soo farsamadana uu ahaa Raaga Cali Dheere intaan barnaamij midkaan lamid ah ku kulmayno daawadayaashaan jecelnahay sidaas nabadgelyo waa Cabdullaahi Taajiro idinka tagaya. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.